صحيح كسود هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر كان اللبات إكسل تحناها عشر كمان نقول لك جلدت كدوني إكسل تلعب وبرتان ويلا السودان عشر مركا سحريرة ينسو جلين دونا وبقينا محوها وامتك سحريرة ينسو جلين دونا عشرة دي كلاتي دتك أدفانس كأي ونفتو دوان ودي دونا ونسو جلين دونا ويسبربر سعنا يعني لكن تنو حنا قلت لك علي dadka doonaya hadda inay si fiican u bartaan Excel marka cashir fudud aan ku bilaabi doonaa intermediate haddana ilaa advancement ku leeyahay doonaa hadda laakiin bilow oo muxuu ahaa beginner ayaan ku bilaabayaa sida loo isticmaalo application kan la dhaho MS Excel waxaan isticmaalayaa MS Excel 2016 aan ugu isticmaalay dabcan adiguna MS Excel 2016 aan isticmaalaysa laakiin la 2010 iyo 2013 labadaba isticmaal kartaa waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin weyn ma jiraan marka haddaba waxaan doonayaa marka haddii aad doonayso inaad barato oo si fiican aad u barato cashirka fadlan adiguna book Excel furo oo la soco waxa alaale waxaan anigu sameynayo inaad sameyso isku day sidaas aad ku baran kartaa kaliya inaad fiirsato kuma filna okay cashirkeeni koowaad waxaan kusoo baranay waxyaabo badan oo aan ku sameyn karno waxa shaashada Excel markay inoo furan tahay waxyaabaan ku sameyn karno sida wax loo highlight gareeyo waxaas dhan aan kusoo baranay maxay ahayd hadda waxaan guda gelaynaa horta Excel sida wax lagu qori karaa qaabma meeqa sida wax lagu qori karaa Excel waxa lagu qoraa inta badan waxa la dhaho informationada lagu qoro waxa waaye text iyo numericals iyo waxa la dhaho formulas waxyaabaha Excel lagu qoro sideedaba waa macluumaadka ama xogta lagu qori karo Excel حويان تكست قرال والو قوري كرا اسكا عادية سيدا علي او كلا والو قوري كرا نوميريكولز واللمبر هذا وحا اللمبر يوحاس لحريرة شاني لبعتنا او كلا والو قوري كرا وحاكلا لو قوري كرا فورمولاس سيدا محوها something like that سيدا فورمولا سيدا سوكلا لو قوري كرا بس سيدا حداس لو قوري كرا سيدا حداس معلومات اكزال لو تلقين لو قوري Excel wixii text ama qoraal ah dhinaca boxka lagu qorayo ama godka lagu qorayo dhinaciisa bidix ku dhajiyaa sida had cali oo kale dhinaca bidixda ku dhajiyo wada aragtaa wixii lambarna dhinaca midigta ku dhajiyaa marka haddii intaad lambar Excel ku qorto uu dhinaca midigta kugu dhajin waayo boxkan macnaha boxkan dhinaciisa midigta ku dhajin waayo sida hadda ku tahay oo kale oo right align kan uu sameyn waayo macnaheedu waxa waaye waxa la waxaad meesha ku qortay Excel wuxuu u fahmay inay yihiin wax oo qoraal ah oo text ah marka adaa la doonaya inaad format garayso Excel aad fahansiiso waxaad doonaysaa inay wax lambar ah exceptions noocaas jiraan waan baran doonaa insha Allah taala tusaale aan hadda 25tan haddii halka intaan tago aan halka xaraf ka raaciyo waka dhinaca bidixda ku dhajinaya macnaheedu waxa waaye wuxuu aqoonsan inay yihiin waxaan qoraal oo lambar ahayn laakiin haddii aan ka tiro dabcan wuu isbedelayaan umaleynaya waka dhinaca midigta ka dhigaa marka wixii qoraal ah Excel xagga midig ku dhajinaya xitaa haddii uu seelka weyn yahay tusaale ahaan halkaas oo kale ilaa halkan oo kale haddii halkan Cabdullaahi ku qoro Cabdullaahi godkan wuu weyn yahay waad aragtaa lawaan weynayay ilaa halkan buu iska ahaado dhinaca midigta ku dhajiya laakiin haddii aan ku qoro 100 aan fiirino wuxuu sameeyaa oo kale dhinaca midigta ku dhajinaya marka waxa weeyaan wixii lambar xagga midig ku dhajiya wixii magacna waxa ama qoraal ahna xagga bidixda ku dhajiya marka taas la soco okay qaababka wax lagu qoro Excel waxa weeyaan xasmeyn kartaa godkaad imaan kartaa double click aad haysaa laba jeer aad ku dhufanaysaa qalinka ku budbooday wax ku qori kara hore wax ugu qori kartaa okay qaabkaas wax ugu qori kartaa taawamid marka la hada sanad hal mar iska taabanaysaa hadana qoraal hore ka bilaabaysaa waamid okay هذيك الهلكة أنا قاعد كله فتح حاجة نتيجة فورمولا باقي ماشي الهلكة نتيجة هلكة قرار كده وسمي سنة أنت بدن تنا يا رسمي أو ناكسن إلا نايد واحد بدل كرتا أنت بدح من نقطة تتري كرتا واحد بدل كرتا مركلة واحد بدل كرتا مركو هلكة بوجو وغلنك مركا واحد دون بدل كرتا لكن مركا كلاته تسألهان عبد الله عبد هلكة مقورين وكلا عن spelling كيس خلادنا عن دول أكلت عن كده نوع عسان غورة عبد الله وقلدين halkan anoo joogan wax ka bedelay hadaa dhado waxa waaye way inaad double click dhahdo danta kugu kalifaysa qalin markuu halka ku imaado then aad saxdo danta kugu kalifaysa laakiin hadaadan double click dhihin waxaad sameyn kartaa halka markaad click ku dhahdo qalinkaaga halka la ku dhufanaysa hal mar halka sare geynaysa
halkaas markaa gesho then waxaad doontaa ka samayn kartaa markaas waa bedeli kartaa waxaad doonaysa ka bedeli kartaa okay marka sidaas ayaa wax lagu qoraa laakiin sidaas rasmiga inta badan waxa weeyaan halka hadaad geshato qoraalka sax ay ku noqonayaan perfect marka next step حاويان كل شيء واحد لو كوبي واتقنا عندي هالكن هذا let me say عبد الله and then عبد الله ربعنا كوبيو then عبد الله هالكن أنا right click كوبي سيدا عادي جهاد هالكن أنا سكجينا then paste on له مركا وسيدا عادي جهادهم دو كوبين كرتا لكن أنت بدن اوكي انت بدون waxaa fiican inaad xagga sare tagto markaad koobinayso sidana kula ku yaal kana ku dhufanayso inta tagaysa halkan aad ka soo koobinayso kan is better hadaad koobi dhahdo hadaad cut dhahdo waxaad doontid marka hadhowna optionada waad garanaysaa applicationadan cusub markaad wax koobinayso markaad wax koobiso waxa weeyaan koobis halkan aad right click inta dhahdo paste-ga aad iska dhigi kartaa ama waxaad aadi kartaa halkan oo paste-ga midka doonta kala soo bixi kartaa page special intana kala soo bixi kartaa tan laakiin insha Allah marka la barin doona insha Allah okay marka koobiska iyo paste-ga waa sida caadiga word weeyaan wax farq weyn u dhaxeeya ma jiraan asoo sameynaysa perfect now xisaabaadka oo kale Excel haddii aad rabto let's say عندنا حنكون سمينا addition Excel انت بدون وحلو استعماله حويا Excel وحلو استعماله انت بدون وحويا حساباتك يقوم لمبرده انت بدون لو استعماله كجر يعني هلكا بقول يا كجر كودفو oh my god Somali كودفو وقيبي okay وقيبي marka ku daro kale hadii aan rabno Excel waxa weeye waxaan sameeynaa waxa si basic ah sameyn kartaa laakiin had iyo jeer markaad xisaab aad isku dari kala jarayso wax u qaybinayso ama aad ku dhufanayso had iyo jeer Excel waxa lagu bilaabaa calaamadda equal calaamadaas la midka ayaad ku bilaabaysaa wax kasta oo formula aad garanayso ma qaacida kasta aad gelinayso waa inaad taas ku bilowdo okay waa inaad taas ku bilowdo marka tusaale ahaan maxay ahayd halkan waxaan ku qoranayaa 34 probably and that would be 25 3 and then 10 okay marka haddii aan rabo 15 okay haddii aan rabo marka inaan isku daro bal aan dhaho waxaan isku darayaa let me put here 5 enter 5 enter 5 okay no marka inaan isku daraan rabaa marka koowaad waxaan rabaa 15 iyo afartaas inaan isku daro ayaan rabaa marka halkan aan imaanaya godka xigaan imaanaya labadaas god kan halka godkan ku jira kana godkan ku jira waa inaan tago god banaan oo kana meeshan doonaan tagi karaa hadaan rabo halkan tagi karaa meesha doonaan tagi kartaa laakiin hadda nidaam ahaan halkan aan tagayaa marka calaamadda equal aan taabanaya qaabo badan aan isugu dari karaa marka isugu dari karaa sida caadi hadaan rabo qori karaa 15 gacantayda ku qoraya hadana control plus waxaan ka rabaa shift plus aan isla taabani then afartiyan sida u qoraya then intaan dhahaya inta rama iska dhahaya sida caadi gacantayda ku qoraya okay 19 u siinaya waxaa kaloo sameyn karaa inaan dhaho equal markaan dhaho waxaan sameynayaa qalinkaygaan soo qaaday halkan aan click dhahan taaban waan tuujin then calaamadda plus waxaan ku taabanaa shift iyo plus aan isla taabani kadib tanaan imaanaya marka Excel meesha wuxuu soo gelinaa cell reference waxa waaye godka tilmaamtiisu meesha soo gelinaa tirada ma soo qaadayo 15 ma soo qaadayo laakiin godka asaga ah magaciisa tilmaamtiisu soo qaadayo godkan marka la magacaabo wuxuu noqonayaa D waxa ka sare ka xigto iyo labo inta ka xigto marka wuxuu noqonayaa D2 kana wuxuu noqonayaa asagana waxa waaye E xaga ka xigto intana waxa ka xigto number 2 wuxuu noqonayaa E2 marka wuxuu ka wadaa Excel D2 waxa ku jiro waxay noqdaanba oo tira iyo E2 waxa ku jiro waxay noqdaanba oo tira oo la isku darayo
tiradii ma kuu soo qoraya 15 afartii meesha ma kuu soo qoraya reference-kii cell-ka magaciisa kuu soo qoraya intaa markaad joogto intaad iska dhehaysaa okay inta ayaa taabanaysaa saas weeyaan saasuu noqonayaa taa waa midda kaleeto waxaa weeyaan halkan adoo mirayo equal aa leedahay equal aan dhahaa equal markaan dhaho oo qalinkaasi waa halkaas ii joogo kale isagoo qalinka halkaasi waxay qaabo badan iskugu dari karaa qalinkaasi waa halkaa ii joogo waxaan dhahaa alt equal okay alt equal haddaan dhaho excel wuxuu sameynaya fiiriyaa kugu celinayaa halkanaan marayaa waxaan rabaa labadan inaan isku daro 14 iyo 15 iyo afartan isku daro meeshii aan rabay inaan halkan godkan yaan tagayaa waa godka labadoodan dhinac ka xiga marka halkaa tago waxaan tagayaa alt calaamada alt keyboardka alt iyo equal hal mar isla taabanaya altan hor taabanaya equalkan ku xijinaa markaasoo kale excel wuu boodayaa wuxuu fiirinayaa cellkan xagga sare ka xigo wax lambar ku qoran malaha xaggan midig wax lambar ku qoran malaha xagga hoosena wax lambar ku qoran malaha maxaan ka wadaa waan kusoo celinayaa sida fahanto okay halkan markaan joogo dhinacan godkan hadda aan joogno godka ka sarreeya wax ma ku qoran mayo kan waxba ku qoran mayo kan waxba ku qoran mayo laakiin kan inta ka xigo lambar ku qoran dhinacaas uu aadaya excel uu dareemayaa waxaad isku dari rabto marka cell alla godkaas ugu soo dhow tirada ay ku qoranto aadaya markaan alt equal dhaho oo ka dhinaca bidixdu aadaya xagga sare ma aadaya xagga macaan ilaa lambar kama baxgaan dhinacaas intaas markaad marto intaas marayso waxa weeyaan formula-gu meesha soo gelinaya equal sum labadii cellski magacyadooda meesha kusoo qoraya bracket wuxuu xoraya inta uma dhahaysa inta markaad aado waa inta salkaas u noqonaya waxaa kaleeto samayn kartaa halka adoo joogo equal aad leedahay equal markaad dhahdo ereyga sum baad qoraysaa wixii sum oo dhan uu isticmaalo qaa'ida halkan kuu soo dhigmayo adigu kanaad rabtaa ee xagga sare sum-ta ah then taabaad taabanaysaa okay taab markaad taabato len waxaad taabanaysaa labadan lambar sida hal mar iskuula jiidaysa tanaad tuujini then adoo qalinka ku dhigan baa muuska ku dhigan baa halkaa u jiidaysa ilaa halkan labadooda isku leed then bishi baad xiraysaa oo waxaad ku xiraysaa shift iyo 0 then inta baad leedahay oo kaa 19 kuu soo qoraya okay waxaa kaleeto samayn kartaa equal aad leedahay and then probably equal markaan dhaho no equal sum tab and then halkan imaanaya halkaa markaan imaado raalaadaya waxaan qorayaa equal aan idinku soo celinayaa ereyga sum baan qorayaa sum waa ku dar anoo halkaas marayo sum markaa siday u noqoto tab ayaan taabani tab markaan taabto intan markaan maraya halkan aan tegaya fx taas ayaan tegayaa then lambarka koowaad lambarada aan isku dar raba laba lambar aan isku dar raba okay lambarka koowaad kan waa halkaasaan tuujinayaa waan kasoo tegaya qalinka inta keensanayaa lambarka ku xigan ku dar raba waa kan okay then okay aan leeyahay 19 intaasoo noocaad wax isugu dari kartaa okay intaasoo qaabeed wax isugu dari kartaad ku ceshin kartaa adiga haya halkan waxaan odhanaa kajar sidoo kale waxaan sameynayaa equal then 34 caadi aan qorayaa shift minus aan taabani maya minus aan toos u taabanaya shift ma taabanaya minus and then shan aan taabanaya then equal kan taabanaya oo ka intaas ka soo baxay 29 waxaa kala sameyn kartaa equal markaa dhahdid qalinkaadaad qaadana halkan aad taabanaysaa kligaad leedahay waad tuujin markaad tuujiso ka dambe plus ta sameynaysaa oo shift plus isla qabanayso haddana kanaad taabanaysaa kadibna intaad taabanayso inter kaasuu ku noqonaya waxaa kaloo sameyn kartaa halka adigoo marayo can we go there now probably now okay yes sure we can do that okay now probably okay so qaabkaas sameyn kartaa waxaa leedahay equal markaad taabatid had iyo jeer equal ku wada bilaabaysaa mouseka soo qaadan halkan aad tuujinaysaa minus ta gelin toosa u gelinaysaa minus keyboard ka gelinaysaa halkan aad taabanaya equal leeyahay waafi xagan waxaa waay ku dhufo equal leedahay haddana iyadana mouseka halkan tuujinaysaa kadib waxaad soo taabanaysaa shift iyo number 8 shift iyo number 8 markaad iska taabo calaamadaas soo baxaysa ku dhufa laga wadaa tanaad ku dhufanaysaa iyadana
equal leedahay inta soo soo baxayso okay u qaybi sidoo kale waxa leedahay inta equal taabanaysa lambarkana taabanaysa in la qaybiyo rabo ka dambe waxa isla taabanaysa waxa taabanaysa alaabta soo taabanaysa ya waxaa la dhahaa forward slash ka taabanaysa dan kana hadana tuujini kadib okay leedahay inta okay marka waa caynkaas sidaas aad iskugu dardari kartaa maxaad waxna iskugu dhufan kartaa markaad Excel joogto cashirkaas halkaas ku soo gabagabeynaya waa cashirkeena saddexaad ayaa ku xigi doona insha Allah ta'ala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hadii aad ka heshay ama aad u bogtay cashirkan fadlan taliya tusaale ama comment waxa la dhaho xagga hoose inoogu reeb bogana like gare oo aad subscribe gare ila cashira oo taxana ayaa ayaan soo gelin doona insha Allah si aad uga faa'iidaysato assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh